السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciwaanka casharka maanta aynu qaadan doonaa waxa uu noqonayaa commonly confused words, ereyada inta badan lagu dabaqo. ereyadani waa ereyo aad iskugu dhowdhow balse macno ahaan kala duwan. dad badan ayaa waxay maleeyaan ereyadan inay isku mid yihiin, laakiinse waa ay kala duwan yihiin, macnayaashooda ayuunbaa isku dhow ama qaabka loo adeegsanayo ayaa isku dhow. labada erey ugu horeeya aynu qaadan doonaa waxay kala noqon doonaan kelmadda fun iyo funny. fun iyo funny waa laba erey oo isku dhow laakiin macno ahaan kala duwan. fun waxaad u adeegsanaysaa amba waxa loo isticmaalaa having a good time. when you are having a good time, marka aad waqti wanaagsan oo xaraabo ah amba qosol ah aad qaadanayso. tusaale ahaan waxaad ciyaaraysaa maanta ciyaar, marka aad ciyaarta ciyaarayso ficilka adiga ayaa samaynaya. fun ayaad qabanaysaa amba wax xiiso leh ama wax ku xaraabo gelinaya ayaad samaynaysaa. kelmadda funny way ka duwan tahay fun maxaa yeelay iyada adigu ma qabanayso wax xaraabo leh ama wax qosol leh. waxa weeyaan it makes you laugh. waxbaad daawanaysaa, waxaas uu ku qosol gelinaya. waxbaad qof uu samaynaya waad ku qososhay ama wax ku xaraabo geliyay buu noqday. taa ayaa loo adeegsanayaa kelmadda funny. taas labada erey macnayaashoodu saasay ku kala duwan yihiin. ereyga labaad aynu soo qaadan doonaa waxa uu noqonayaa kelmadda surprise iyo shock. surprise iyo shock sidoo kale dad fara badan ayaa labadan erey ee aadka iskugu dhow isku khaldan macnayaashooda, waa si ay kala duwan yihiin. surprise waxaad u adeegsanaysaa shayga amba waxa la yaabka leh ee qofku sida kadiska ula kulmo. shock kama foga iyada laftarkeeda, waa dareen degdeg ah oo qof qabsaday. laakiin maxay ku kala duwan yihiin labadan erey? waxay ku kala duwan yihiin surprise waxaad u adeegsanaysaa for a positive situations, xaaladaha positive-ka ah amba qofku wax wanaagsan uu la kulmo, halka shock loo adeegsanayo negative situationska. kelmadda surprise oo kale, tusaale ahaan someone has called you, qof ayaa ku soo wacay waxaana uu kuu sheegay inaad ku guulaysatay $1 milyan. xaaladaas oo kale waa wax surprise ah, waa wax lama filaan ah, sidoo kale waa wax positive ah oo wanaagsan oo aad la kulantay. laakiinse hadduu qofku soo garaaco isagoo uu kuu sheegaya saaxiibka waxbaa ku dhacay ama saaxiibka gaadhaa jiiday ama war naxdin leh oo saasoo kale ah, taas waa negative, waxaana loo isticmaalaya shock ayaa loo isticmaalaya. sidaa awgeed labada erey waxay ku kala duwan yihiin. midna positive ayaa loo isticmaalaya waxa wanaagsan ama waxa fiican aad la kulantid, midna waxa negative-ka ah ee xun ee aad la kulantid ayaa loo isticmaalaya. ereyga kale aynu soo qaadan doonaa maanta waxa weeyaan ereyga famous iyo popular. famous iyo popular waa laba erey iyaguna aad iskugu dhow laakiinse macno ahaan kala duwan. labadaba qofka caanka ah amba dadku ay garanayaan ayaynu u adeegsanaa, laakiin waxay ku kala duwan yihiin ayaynu sheegi doonaa maanta. ugu horreyn inta aanan gelin kelmadda famous, waxaan doonayaa in dhawaaqeeda dad badan ay saxaan oo ugu dhawaaqa famous, laakiinse looguma dhawaaqi doono famous, waxaa loogu dhawaaqayaa famous. famous waxaa loo adeegsadaa marka dad fara badan ay ku garanayaan. many people know you, dad fara badan ayaa ku garanaya, waa kelmadda famous. laakiin dadkaa fara badan ku garanayay kuma jecla, laakiin qof la garanayo oo caan ah ayuunbaa tahay. tusaale ahaan oo kale imika haddaynu soo qaadano Hitler. Adolf Hitler waa nin caan ah, dunida dhan waa laga yaqaanaa, laakiin ficiladiisa iyo waxa uu samayn jiray cidina ma jecla. dad buu qasaacadeyn jiray, dad buu aad u leyn jiray, waxaa ka mid ahaa keliya taliyaasha ugu khatarta badnaa ee dunida soo mara. sidaa awgeed waa famous, everybody knows, qof kasta wuu garanayaa haddii lasoo hadal qaado magaca Hitler, laakiin lama jecla. kaas oo kale waxaa loo yaqaanaa amba waxaa la odhanayaa famous ayaa loo adeegsanayaa. popular waxay kaga duwan tahay kelmadda famous, waa sidoo kale waa run, waa lagu garanayaa, laakiin waxaa kuu dheer many people likes you, dad fara badan ayaa ku jecel ama dad fara badan ayaa taageero aad u badan ku haya. tusaale ahaan imika popular waa qofka la yaqaano ay u dheer tahay jacayl la jecel yahay. tusaale ahaan prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabi Muhammad oo kale naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, he was a popular, waxa uu ahaa qof dadkoo dhan ay yaqaanaan amba imikaba uu yahay sidoo kalena la jecel yahay. sidaa awgeed popular baynu u adeegsanaynaa qof la jecel yahay oo la yaqaano, laakiin looma adeegsanayo famous, looma adeegsanayo. labada erey sidaa ay iyaguna macnahaan ay ku kala duwan yihiin. inta aynu ku soo koobi doonaa barnaamijkeena maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.